نبدي نحرس كركينا الله كيالو دنبجينا يكي والدين تنا إلهي سبحانه وتعالى هدف قصوينك قاربا waxay leeyihiin in aad ku cibra qaadato xigmada ku jirana aad kala dhaxbaxdo waxa la yiri nin aad iyo aad Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu xusiyay oo taajir ah oo wadanadan muslimiinta ee Carabta ah degan ayaa uu xanuunsaday markii uu xanuunsadayna wadanada caafimaadka loo doonto Ilaahay caafimaadka hayay dhaqaatiirtu ku fiican buu yimid taniya cirib baa la baaray qalab wixii lagu sameyn karo ayaa la galiyay kadib waxa loo sheegay in xaaladiisu aad iyo aad u liidato cudurka xun Ilaahay annaga idinka waxay naga hayee ee la yiraahdo kansarkana uu hayo jirkiisa oo dhanna taniya cirib uu ku faafay xaaladiisuna ay marayso kaliya inuu meeshii uu ka yimid uu ku noqdo wixii dardaaran ah iyo kala habeen hawlihiisa uu kala habeen karana uu kala habeeyo halkaana uu ku sugo malakul maut nafta malakul maut ki nafta ka qaadi lahaa Ilaahay baa nafteena iyo naf magaranaysa nafahoo dhan ay gacantiisa ku jirtaaye Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeye de marka uu soo noqday ninkii isagoo marka cidhiidhi aad iyo aad u far badan dareemaya cabsi badanna ay hayso waana dareemaysaa qofka muslimka ah waxa weeye marka la yiraahdo maanta dhimanaysaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wad la kulmaysaa talow camalkaaga ma laga aqbalay waxaad khayr samaysatay intee la ekaayeen xisaabtan fara badan iyo cabsi fara badan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala la kulankiisa iyo wuxuu hormarsaday uu ka cabsanayo rajana Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu rajeenayo dheer kadib habeenada kamida ayaa waxa qabtay ninkii naqaska cidhiidhi fara badan buu dareemay daqad fara badan tan wuxuu jiri soo luge oo meelaha magaalada iyo banaanada u bax tan markii uu daalay buu meel iska fadhiistay uu suuba halkan iskaga neef gooso oo magaranaysa ku yaranaso habeenna way ahayd wuxuu maqlay markaa gabadh dhalinyaro ah iyo nin dhalinyaro ah oo wada hadlaya gabadhu waxay ka dalbanaysaa ninka ay leedahay walaalow guriga karidiisa iga bixi wax yar oo maanta ciyaalka aan magaranaysaa aan ku quutana aan maanta ciyaalka dabka ugu shidana isi marka gabadhu ciyaal agoon haysataa waxa weeye mana shaqayso guriga karidiisina waa lagu leeyahay wax allaali waxay magaranaysaa maanta dabka u saartana ma hayso ninkii dhalinyarada ahaa ee gabadhu wax ku tuhmaysay uu ka diiday hadii uu ka diido in badan ay baridana waxay istirmalaha maadaama nin dhalinyaro ay yahay maanta waxaad wax uga heli kartaa oo kaliya inaad naftaada u bandhigto dadana waxay ku tiri walaalow naftaydan ku bandhigayaa waxa doonta igu samee maanta arintaas ay haysatay arinta iga dulqaad sida runta waxa laga yaabaa in la yaabtaan laakiin faqriga nabiga kaleeyhi salaatu wassalaam ilaahay uu ka magan galay wuxuuna oran jiray allahumma inni a'uudu bika min al-faqri ilaahay oo faqriga ayaan ka magan galaya umar ibn khadaabna waxa laga sheegay hadii aan saxsanaado waxa laga sheegay inuu yiri faqriga hadii aan arki lahaa ama nin lagu soo mataalin lahaa lagu mataalin lahaa waan dili lahaa inuu yiri umar ibn khadaab marka qofku markay duruufta hayso faqrigana uu magaranaysaa jaanjaamiyo uu mehanaabiyo wax walba way ka suurtooba laana bil aadamku waa daciif way wuxuu ku yiri naftaadana ma rabe idaaf ayuu ku yiri marka xaalad kasto ay wax uga qaadan karto waa isku dayday laakiin way ku guul dareysatay gabadhi meel bay iska fadhiisatay way ooyday oo hin walibana waxa ay hiraag iyo magaranaysaa de baroor oo kala bay ooyday oo aad magaranaysaa uu qeylisay odaygii baa soo kurkursaday gabadhii buu yimid salaamu calaykum inantaydii wa calaykum assalaam adeer ma fiican tahay waan fiicanay maxaa ka ooysiiyay dadana way iska aamusta way ka xishootay wuxuu ku yiri waan maqlayay adigii ninkii dhalinyarada ahaa wixii idin dhex maray adeer arintaada iga waran way xishootay gabadhii waxay ku tiri adeero hadii aad maqlaysay waxa aan ku hadlayay wax aniga ii qalma ma aha wax aan gayana ma aha laakiin waxa ay keentay duruufta ninka dhalinyarada baan arinta weydiistay lacag weydiistay iyo dabka inuu noo shido guriga kiradiisana naga bixiyo waana ii diiday marka aniguna waxaan damcay inaan nafteyda aan u bandhigo wuxuu ku yiri inta mooyana ma dhib kala ku haysata ninkan waa ninka aynu ka sheekeynay aynu lahayn waxa weeye waa nin caana wadanka oo dhan ba laga yaqaana waa nin Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo si ma yaba tiri dhib inta ka badan oo haystaa ma jiro ee taa ma dhib ka badan baa jirta bay tiri ay weydiis wuxuu ku yiri ma ii ballan qaadaysaa hadii inta aad u baahanto oo dhan aan ku siiyo oo ka kafaad qaado inaadan qof dambe aadan naftaadan aad u bandhigayn yani jirkaaga aadan u bandhigayn ballan baan kugu qaadayaa bay tiri markii horeba waxaan sameyn jiray ma aha horena uma aan sameynin laakiin baahida iyo duruufta iyo maanta ninkaas aad wax ka heli kartaa baan saa u sameeyay orod gurigaaga xagee degantahay habuu yiri gurigii bay u tilmaamtay way iska tagtay isaguna gurigiisii uu iska tagay waagu markuu bariyay
ayuu wuxuu raadiyey ninkii guriga ay degan tahay inantu iyo ciyaalka ku haysato deganaa lahaa ayuu raadiyey wuxuu ku yidhi hebel ma adiga ha anna hebel baan hawuuba gartay wuu istaagay war xaaji hebelow maxaa telefoon iigu soo diri weyday qof baad ii soo diri lahayd anigaa fadhigaaga kugu iman lahaa ninku waa nin garanaysa maasha allah tabaaraka allah ilaahay mansab iyo hanti uu siiyey wuxuu yidhi may dhib ma laha gurigaasaan u socdaa war gurigaas maxaad ka rabtaa gurigaas guri adig kuu qalmo maaha reer masaakiinaad degan war maya wuu ku yidhi saad moodee ma ahee gurigaa waxaan u baahanahay inta bilood aad ku lahayd gabadhaana inaan ku siiyo oon imika ku siiyo hadda maanta wixii laga bilaabana gurigaa kiradiisa anigaad ii soo doonanaysaa sidii bay ku waafaqeen hanti yaroo ma garanaysaa qof uu ku noolaan kara bishii reer ay ku noolaan karaan iyo ka badanba wuu u qoray sidii bay u noolaayeen muddaa ka soo wareegatay muddo markii ka soo wareegatay ayaa inankii weynaa odayga dhalay oo uu dhalay odagu ayaa albaabka soo garaacay maalin maalmaha ka mid a assalaamu calaykum wacalaykum assalaam hebel hebel baa la yidhaahdaa hooyadiin ma joogtaa islaantii baa usoo baxday hooyo hebelna fiican weeye boqor baa ku dhalay dee waad garanaysaa ammaan qof intaasoo ma garanaysaa muddo ah ku quudinayay oo ku masruufinayay wax ujeeda ah inaad ilaahay ugu dhawaado mooyaane aan kaa rabin mise ku yidhi lacagtaas ayaa ma garanaysaa aabbahay idiin soo dhiibay buuggiisii dardaaranka abaana ku qornayd marka waxaan damcay inaa idinku keeno waxay ku tiri hooyo waad mahadsan tahay lacagtaa waxa weeye aabbaha u celi aabbahaana waxaad ku tiraahdaa inankayga hebel ahaa ee caruurta ugu weynaa ayaa waxbarashadii dhammeeyey jaamacaddii buu ka qalan jabiyey shirkad baa qaadatay shaqo fiican buuna helay laga bilaabo maantana waxaanu aabbaha uga baahanahay ma jirto waan usoo ducaynaynaa inankii oohin buu la istaagay ay u baroortay mise ku tiri hooyo maxaad la ooyeysaa misuu ku yidhi shalay mooyaane daraad buu inankaagii shaqo helay aabbahayna shalay mooyaane daraad buu dhintay waxaad moodaa buu yidhi in ilaahay subxaanahu wa tacaala aabbahay uu u kaadiyey oo uu u dibdhigay noloshiisa inta uu dhimashada u dibdhigay inta uu ma garanaysaay aad lugahaaga ku istaagaysid awlaadaadu ay kuu korayaan oo ay shaqo ku helayaan subxaana malikulquduus islaantiina waa oyday waa la isku ooyey waa la isku baroortay dabeetana waxa weeye hantidoodiina sidii bay ma garanaysaa ay ugu celisay marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa qisada aynu ka fahmaynaa nabiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam war jeex timirna allah ka dhige naarta iska xijiyey buu nabigu calayhi salaatu wassalaam lianna naarta ayay idinka xigaysaa sadaqadu oo waxay idiin noqonaysaa gaashaan waxa kale uu nabigu yihi calayhi salaatu wassalaam assadaqatu burhaan waa caddayn weeye waa caddaynba waxay u noqonaysaa iimaankaaga qof gacantiisu furanta wax bixinaya haddaad aragto waxay caddayn u tahay iimaankiisa inuu ma garanaysaa iimaankiisu weyn yahay oo iimaankiisu uu fiican yahay qof aan waxba bixinayn oo gacantii alla go-ana haddaad aragto waxa weeye waxaad halkaa ka fahmaysaa inuu qofkaasi iimaankiisu uu naaqus yahay sidaa darteed ayaa xadiis kale wuxuu ku nabigu calayhi salaatu wassalaam sadaqada waxaad ku dawaysaan kuwiina xanuunsanaya ku daweeyey buu nabigu calayhi salaatu wassalaam isku soo wada duduub qisadaasi aad iyo aad bay aniga ii murugo gelisay aad iyo aad baan ula tacajabay sida ilaahay subxaanahu wa tacaala xitaa marmarka qaar aqdaarka iyo caafimaadka iyo magaran dib xitaa ugu dhigayo caafimaadkana uu soo hormarinayo ninkaasi dhakhtar walba uu maray adduunka oo dhan buu maray waxaa lagu yihi orda gurigaaga ku noqo sariirtaadii iska fuulo magaranaysa halkaa ka dardaaran baa layidhi laakiin markii uu reerkaa culayskii uu ka dulqaaday isaga culayskiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dulqaaday la soco qisooyinka dambe asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu